ku soo dhawaad mawduucna maanta wuxuu ku saabsan yahay dalka Turkiga. Turkiga waxaa loo tixgeliyaa dalka xadaaradda, taariikhda iyo ilbaxnimada, waana dalka dhaca labada qaaradood, wuxuuna dhacaa Yurub iyo Aasiya. Waa lugtii ugu dambeysay dowladda Cusmaaniyiinta, isagoo xarunta Cusmaaniyiinta ahaa ilaa 1922 markaas oo Mustafa Kemal Atatürk midabada u taagay dowladda Turkiga maanta naqaano. Caasimadda kale laga maamulo waa Ankara, laakiin xarunta ganacsiga waa Istanbul, waana magaalo dalxiis oo u kala qaybsanta Yurub iyo Aasiya. Luqadda rasmiga waa Turki, iyadoo ay jiraan dad ku hadla Carabiga. Turkiga wuxuu xubin ka yahay dalalka Islaamka iyo dalalka dhaqaalaha ka hormara ee G20 ama G2. Turkiga wuxuu kaloo xubin ka yahay gaashaanbuurta NATO, waana dalka labaad ugu ciidanka badan marka laga reebo Mareykanka. Istanbul waa magaalada ugu dadka badan, waxaana ku nool wax ka badan 15 milyan, waana magaalada dalxiisayaasha ugu badan booqdaan. Waana magaalada ay ka muuqato xadaaradda Islaamka, sida masaajidda tirabeelka ee indhaha qabanaya, kuwaas oo la dhisay qarniyo kala duwan, oo ay dhiseen dowladihii muslimiinta dalkan ka talinayay ee kala ahaa Umayyadeed, Cabbaasiyiinta iyo tii ugu dambeysay Cusmaaniyiinta iyo kuwa hadda la dhisay. Turkiga waxaa madaxweyne ka ah Recep Tayyip Erdogan, waana madaxweyne hantay qulubta shacabkiisa. Turkigu waa dalka 37aad ee adduunka ugu dhulka weyn, waxaana saddexda jiho ugu wareegsan bad. Tirada dadka dalkan waa wax ka badan 83 milyan, iyadoo 97 Muslim yihiin. Jamhuuriyadda Qobrista Waqooyi ma aqoonsan adduunku, laakiin Turkigu waa aqoonsan yahay, waana dad Muslim ah. Turkigu waa dal ka hormaray dhanka warshadaha iyo weliba dhanka waxbarashada, iyadoo 6 jaamacadood Turkiga ku taal loo aqoonsaday 500 ee jaamacadaha adduunka ugu sarreeya. Dhanka warshadaha, wuxuu soo saaraa baabuurta, korontada, cuntada, cabitaanka iyo maqaarka. Turkigu waa dalka 7aad ee caalamka iyo dalka 1aad ee Yurub ee haysta biyaha dhulka ka hooseeya, waana midda u fududeysay wax soo saarka beeraha. Istanbul waxay xarun u ahaan jirtay 3 boqortooyo ee kala ahaa boqortooyada Roomaanka, boqortooyada Byzantiniyiinta iyo boqortooyada Cusmaaniyiinta. Xilliga Cusmaaniyiinta, Istanbul waxay ahayd magaalo dhan walba uga horumarsan magaalooyinka reer Yurub. Turkiga wuxuu tayeyn iyo qalabayn ku sameeyay ciidanka xoogga dalka, asagoo saldhigyo ka furtay dalalka Qatar iyo Soomaaliya. Saldhigga uu ka furtay Soomaaliya ayaana ah midka ugu weyn ee dalka ka baxsan. Ciidanka dalkan waa wax ka badan 1 milyan, kuna qalabaysan maraakiibta kala duwan iyo taangiyada. Ciidanka cirka waa ku qalabaysan diyaaradaha ugu casrisan ee maanta la haysto. Turkiga wuxuu sanadkan Ruushka ka soo iibsaday gantaalada ugu sarreeya xagga difaaca marka loo eego adduunka, waana gantaalada S-400 ama S-400, waana gantaalada meel xuduud u jirta 600 oo kiiloomitir ka toganaya cadow ku soo wajahan, waana gantaalada reer Yurub ka cabaadeen. Haddii ay tahay markii ugu horreysay soo booqatid, fadlan subscribe saar, gabbalkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena. Mahadsanid.